kusoo dhawaad daawada meel bood joogtaan barnaamijkan waa barnaamijkan ugu talagalnay inaan idigu soo bandhigno waxqabadka muuqda ee laga geystay 4 sano ugu dambeysay degmada Gaabo taas oo ka geysteen dhalinyaro iskood isku magacaabay misana ku kala sugan daafaha dunida degmada Gaabo ayaa noqotay degmo aad iyo aad u soo kabcaysa marka loo eego 4 sano ugu dambeysay dhinaca bilicda dhismaha iyo hawlaha wax ka qabashada hawlaha asaasiga ee loo baahan yahay iyo sidoo kale taakuleenta iyo garab istaaga bulshada goobta degan degmada Gaabo shacabweynaha ku nool ayaa waxay xaqiijiyeen ama bas ay u marqaati kacayaan 4 sano ugu dambeysay ee dhalinyarada gacanta ku haysay inay wax muuqda ka geysteen taas oo anaguna ku soo bandhigi doono barnaamijyada hadda soo socda ee ka daawan doontaan Gaabo Media inta barnaamijka socdo waxyaabaha ku soo bandhigi doono waxa kamid ah ama bas kamid ah raahday 4 sano ee hadda dhalinyarada xilka hayeen waxyaabaha ay qabteen waxa kamid ah dhismaha masaajid casri ah oo noociisa kale uusan ku oolin degmooyinka sidoo kale dhismaha madrasad ka kooban laba maqsin oo loogu talagalay inay wax ku bartaan wiilasha iyo gabdhaha waxa kale oo iyadna barbar socdo goobta ku yaala waa kinifyada loogu talagalay in la isticmaalo iyo sidoo kale barkad weyn oo lagu weesaysto xilliyada salaada sidoo kale waxa qodobka labaad iyadana kamid ah ceelkii faanoole ee ogeydeen ee ku maqnaa degmada Afmadow oo isagana gacanta lagu soo celiyay waxa kale oo kamid ah guryo casri ah oo loo dhisay dadka goobta degan sideen wada ogsanahay wax guri haba yaraatay kuma haysan oo lin degmada Gaabo guriyo hore ku yaaleen waxaan ogsanahay dhamaanteedba in la gubay misana guriyo dambe aysan ku oolin balse dhalinyarada hadda isku xilqaamtay ayaa waxa dhisan guriyo casri ah kaas oo hadda degan yihiin dadka goobta degan sidoo kale waxyaabaha waxqabadka 4 sano hadda la soo dhaafay la qabtay waxa kamid ah barkad weyn oo dhalinyaradoona ay ka qodeen barkadaas oo loogu talagalay inay ka cabaan dad iyo dunyaba xiliyada roobaadka taas oo la sheegay inay gaarsiin karto roob ilaa roobkiisa kale ay gaarsiinayso barkadan oo la sheegay in iyada lafteeda loo qoday si casri ah misana biyaha u kaydinaysa in muddo ah oo dadku ay aad ugu baraareen taas oo ka cabi doonaan dad iyo dunyaba cid uu Ilaahay ku simo sidoo kale waxyaabaha la qabtay 4 sano hadda la soo dhaafay iyadana waxa kamid ah dibadajin loo sameeyay dad ka kooban ilaa iyo 20 qoys kuwaas oo la sheegay ina bisi bilaa ah loo siiyo iyagana waxyaabaha uqotal daruuriga ay u baahan yihiin si ay goobta ugu nagaadaan inta ay ka badanba waxa ka qabtay dhalinyarada isku xilqaamtay ee 4 sano hadda la soo dhaafay gacanta ku haysay waxaana ku soo bandhigi doonaa barnaamijkeenan aad ka daawan doontaan barnaamijka waxaan ugu magacdarnay barnaamijka bildaaminta bilicda Gaabo kaas oo kala socon doontaan qaybo kala duwan iyo waxqabadka laga geystay 4 sano la soo dhaafay waxaana ka si toos uga daawan doontaan page-ka Gaabo Media hadda waxaan si toos isku dul taagnaa waxqabadkii ugu horeeyay ee qodobka koowaad ahaa kaas oo ku soo horeba ugu soo sheegnay inuu yahay masaajid madrasad iyo sidoo kale markadi biyaha bal haddaba waa kana nala daawo iyada oo muuqaal waa masaajidkii weynaa weeyaan la dhisay weeyaan waa masaajidkii weeyaan wada fiican waa masaajidkii weyn biyaha guryo la degay waa dadku waa ku halkaas oo ay guryo way degay weeyaan magaalo waxaan maleeyay jingada waa fiican ilaa hore bay sii jirtaa ilaa mashaa way sii jirtaa marka oo masaajidkii weeye kaana waa guryo la degay wada fiican sawayna waa masaajidkii weeyaan oo waa masaajidkii weynaa weeyaan ya أنا كنت وبيو وياي مسكينة وياي بسوي وكسبين كذي وكسبين ولا كذا الكعاء كانت تقول مرة يا محمد عكس كذا ولا كذا يجي يجي بس كفر العيد جوا كفر أنا مساعد في وياي وتوا مساجد كوية هذا تسيب أكو سوالف كيسان وكان مساجد كوية بس تقول لي يا ولد كان تيجي سواقة بدي يصير واقع ومساجد ولا أقول له مساجد واقع محمد الله قال وكان مساجد هذا ومحمد قليو مساجد واقعس ولا كيسان مساجد وكان مساجد ولا كيسان وش سوا كلا ويالا توتي سوا فواس ومسجد ولا سوا كان ما يعرفنا ومساجد ما يستوي ويالا ولا كيسان مساجد ما يستوي ويالا ومكوي حقيقة مساجد يلو كوي إلى الله أكبر جمعها ولا كيسان
صور الكلية ولا كيسان البيت واحد مساجد عليه في سنة الله صور الكلية الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله سكاي وكاس ولا كيسان كوكا حاجة كوكا أنا سمعت عن إيش في وكاس وكا ولا كيسان وكاس ولا كيسان وكاس وكاس ميكروفون كي سماعدي وهاي شاهدك ويا الله خيبت سمحرابك انت محمد جبيني وصول الويا نروح وكون واكن نلقى قرأ أنكم قبل حلو ملحاق كان ملحاق فوق الشيلان وكان نلقى قرأ وهذا كيسا وكا وشيلان يهاي نلقى واكن وهذا كيسا صول الويا ساسا في الوقشة كي نلقى بالكدي صلى الله عليه وسلم لقوا يسيست واتن بالكده مساجد واتن مدرسة واتن مسؤولين وأكون مساجد مسؤولين ليه هاي مدرسة ليه هاي مدرسة ومساجد مدرسة دي سوية ما شاء الله هذا لو تلاقي الله هذا لو واتن ما شاء الله هذا لو واتن مسؤولين سوى كواس مساجد لما مسؤولين دولة مساجد وأكون مسؤولين سوى هذا كيسان المركة هذا حاجة حافظة كلام هذا هو في سؤالنا وحافظ بالله وإيه بالكدي صلى الله عليه وسلم لقوا يسيست واتن بالكده مساجد واتن مدرسة واتن مسؤولين وأكون مساجد مسؤولين ليه هاي مدرسة ليه هاي مدرسة ومساجد مدرسة دي سوية ما شاء الله هذا لو تلاقي الله هذا لو واتن ما شاء الله هذا لو واتن مسؤولين سوى كواس مساجد لما مسؤولين دولة مساجد وأكون مسؤولين سوى هذا كيسان المركة هذا حاجة حافظة كلام هذا هو في سؤالنا وحافظ وأنا سلام يا بقول طبعا يا أفرد القرآن كعدديس waxaan walaalayaal idin leeyahay masaajidkii waxaan maanta dul taaganahay shaqooyinkii kale way soo dhamaadeen waxa allaale wixii noo suurtagalay guryo aad u dhoor iyo 30 way sii marayaan masaajidkiina maanta aanu taaganahay dhismihiisuna waa idinka arkaya ehel wax ka maqan haba yaraatay oo ereyadan joogayna ma jirto waxaan idin leeyahay walaalayaal sida aad noo dalacsiiseen allah idin dalacsiiyo meel kastoo joogtaan dadaalkiinina waa in macnaha laban laab boqolkiiba boqol aad ka dhigtaan meeshan dhalinyaro yar yar oo haddana odayaal waaweyn qiimadeeda ka sarreeyo yaa annaga halkan nugu hegihaya ma hergelaan mana hurdaan xalay halkan ay nala bariyaan dhaxantaan haddeerna way nala taagan yihiin sidaa iyaga ay u xusul duubayaan oo ay wiil iyo gabar iyo mataqaana mid ehel oo fog intaba dhawaaqiisa ay u taagan yihiin iyo aroorintii iyo dhismihii iyo abaabulkii ilmaadeerayaal oo idinka hakan idinka cajisin ayaan idinka codsanaynaa وانا idin ducaynaynaa habeen iyo maalin meel kasta joogtaan inuu ilaahay qiimihiina sharaf ee bad ilaahay idin sareysiyo barnaamijkan ugu talagalay inaan ku soo bandhigno xaqiiqooyinka 4 sano hadda la soo dhaafay wixii la qabtay waana barnaamij aan ugu magac darnay soo bandhigida bilicda Gaabow ee 4 sano qaybta xigtana waxa ku daawan doontaa wax qabad ka muuqda ee laga qabtay degmada Gaabow 4 sano hadda la soo dhaafay waxaan idinku soo bandhigi doonaa hadba qayb ayaan idinku soo bandhigi doonaa waxaad kala socon doontaan Gaabow waxaad kala socon doontaan raahday page-ka Gaabow Media waa abti doono idin leh sida iyo caways wanaagsan